صعب 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 بدها نوتمو صعب 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 بدها نوتمو برتوا قرون بوعدي عيارها بربارتي لصوحبي ترتاح وباقي بوشي خير يطمر يا أبو سركعة صعب 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 بدها نوتمو صعب 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore naga raali ahaada waqtiga waxoogaa maartay dib noogu dhacay aayad quraan aan rabaa inaan marka hore aan ku bilaabo intaan barnaamijka u guda galin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آياتان ويقابنتها لكن معنوين يكون فرد صدق الله العظيم marka aad iyo aad u maasantiin dhamaan dadka ka soo qayb galay waxaan rabaa inaan marka hore aan u tacsiyeeno walaalaheen naga geeriyooday bishan gudihiisa shalay oo la duugay Cabdullaahi Cilmi oo taqaanaan ciyaar jirijeenya witig maalintii ka horeysay waxaa la duugay Sayd Ali Abdullah Bare maalintii ka sii horeysay waxaa la duugay wiil yar oo dhalinyaro ah 20 jir ah shalayna waxaa la duugay nin 80 jir ah maalin ka horeysay waxaa la duugay 20 jir ah geerida inay mar kastaba qof kasta diyaar inuu u noqdo maxamed Aydruus maalin ka sii horeysay waxaa la duugay Nuur Cabdi Xaaji Shaarki ha marka dhamaan inta naga dhimatay iyo ummadda ay ka dhimatay Soomaaliyeed Ilaahay oo naxariisto Somali Week waxa la aasaasay 2009 maantana meesha ay marayso waad arkaysaan ما شاء الله شقة في عم بالغبتي دلنيرة بدنا كسو شقي هذا أرتينا وذا فديان يقار أو حوجا عيارها رتاير كنقضي معلمين بدن أيا شقنا لسوا قبتي عيارتوي بدن أيا شقنا لسوا قبتي وضيال لما أنتوا ذو مهد علينا سيد شرفت له أي قرب كانوا سوء استاجد لما كوني سجال أيا أساسي أنا جو قدومي لهم بشقينين شقدي سفي عم بقى قبلني لما كوني تون وحنقو أنكو قارن إن قدومي سمسنو ay ninka baawarka inuu steering u baahan yahay waxaan dhahnay waa wada hadalnay go'aan baa la gaaray Xuseen Deeq oo taqaanaan ayaa gudoomiye loo wada doortay xogayna waxa noqday Islaw sanadkii labaad heerkii shalay maalintii koow aan joognay meel ka fiican baan gaarnay hore aan soconay waxaan bilownay in ciyaartooydii ka soo baxay dibadda loo qaado oo laga xulo kooxaha ilaa Imaaraadka la geeyo ilaa Kuwait la geeyo sanadkii saddexaad isla Xuseen ayaa muteestay inuu ku noqsado maadaama shaqadii ka horeysay shaqo fiican uu qabtay dhamaanteena gudiga waxaynu isku raacnay inay hadana ay maar sidoo kale Xuseen aan ku celino waa ka soo tagnay 2011 macallin Shiine oo asagoo markaas matalayo urur kale ayuu asagana nala yimid in waxaan sportiga qaybsanaanta wax u fiican ma aha sportiga lagu yaqaan kala qaybsanaan iyo qabiil sportiga waxa lagu yaqaanaa isku keenid iyo mideen ummadan ayaa ku midoobay laba oo adduun dhan ku midoobay sida wala socotaan Chinese-ka iyo Mareykanka ku midoobay annaga Soomaaliya hadana sportiga annaga mideyn karno ummadda Soomaaliyeed laakiin waa marka annaga mideysanahay Shiino Guhad ayaa qabtay sanadkii ugu dambeeyay si sharaf leh oo qurux badan 16 kooxood oo aan ka dhicin London ayuu maamulay 16 kooxood waa dareemi kartiin Soomaaliya xataa kooxooda 16 ma ahayn shaqo fiican baa la qabtay sanadkan Shiino Guhad markuu xilligiisa ka dhamaaday oo xilkiisa ka dhiibay isla markii gudiga way fadhiisteen sug Cabdi markii shaqadii Shiino Guhad uu dhigay markaasi dib baa la isku noqday waxa la yiraan doorna sanadkan Cabdi ayaa loo doortay Cabdi Ahmed hortiin wada fadhiyo waa gudoomiye sanadkan 2013 ilaa 2014 ayuu xilkiisa ka dhiibay asagan meeshan waxa waay dictator ma aha nin kasto sanadkiisa loogu tala galay uu qabanaa hadii loo garto mar labaad baa loogu celinaa hadii kale ninkii markaasi oo diyaar ah ama qaban karo hawshii ayaa loo dhiibayaa xogeeyii sanadkan waa ninka nagu daayar Cabdisalaan Muumin taqaanaan asaga ayaa xogeeyo ah ururka waa dadkan iyo qaar kale oo maqan ninkaas meesha fadhi waa gudoomiye ku xogeen waa Daus waa ninkii sanadka hore tanaazul ka sameeyay asoo gudoomiyenimada dhigay markuu arkay macallin Shiino wuxuu gartay respectiga sportiga uu qiimo leeyahay Cabdisalaan Muumin waa nin xubinka ee meesha Cabdi waa ninka gudoomiye ah
ninkan waa ninka kooxaha 8 kooxood aan hadda ma arkin oo aan maamuli doono insha Allah magacyadooda halkaan aad ku sheegi doonaa ay kamid yihiin London Star, Hilltop, Streatham, Manchester, Leicester, Nabada, Jubba iyo Blue Ocean 8daas kooxood ayaa tartanka lagu wada ciyaar doonaa ninkii inta isku keenay oo la xiriiray waa Xuseen asaga ayaa ka mas'uul islaw waa wada taqaanaan guddiga farsamada ayuu mas'uul ka yahay anigana waxaan mas'uul ka ahay xiriirka dibadda iyo odayaashan oo imaanayaan taasi marka warkeen idinku dheeraanayo marka waxaan rabnaa waqtiga soo gaaban waa Ramadaan waxaan nala joogo sida runta ah awda jeedaan guddoomiyada dhalinyarada Soomaaliyeed sportigaana wax weyn ka soo qabtay Salaad Cismaan Rooble waxaan nala joogo madax guddiga Olombikada wakiilka ka tirsan Talyaaniga isoo maray waxaan nala joogo afayeenka Olombikada Soomaaliyeed Cabdi Dheeg awada taqaanaan Yusuf waa taqaanaan naadiga wagad ayuu guddoomiye u ahaa ilaa heerkaasna wadaga soo gaareen afsaddexdaas horyaal qaadayeen dadkii madaxda ahaa soo hogaaminayay waxaan nala joogo nin dhalinyaro ah oo sportiga laakiin meel weyn ka joogo da'diisa iyo sportigiisa ma laha wajiis magaartiin waa yaryahay Cabdi Shukri Allah Minneapolis oo noogu yimid ku soo dhawow waxaan nala joogo madaxda maadaama ninka ugu sareeyay uu maqan yahay laakiin dad baa wakiilka meel markii laga tago wakiil baa loo yeelaa waa guddoomiye ku xigeen Maxamed Khaliif ururka mideynta qurbo-joogta Soomaaliyeed intii oo ilmaha Soomaaliyeed maanta meelaha oo jaamacadaha dhigta ama shaqaysto shaqo fiican ka qabtay asaga haduu aan lahayn ilmahaas maanta dhulka maanta xabsiyaday ku jir lahaayeen 13 sano ilaa 15 sano ilmahaas gacanta ku hayay sil ciyaaraha faraha ma kala bixin uu ku jiraa waa macalinka macallimiinta ayuu macallin u yahay odayaal kale oo aad u qiimo badan nala joogan Daahir Cismaan Faarax waa Daahir Gacmi odayaal badan oo aad u qiimo badan nala joogan Yusuf waa taqaaniin waa SSB Media waa runtii ninka aad noola shaqeeyo waa Soomaaliya ka dama qashid Yusuf waa maqashay marka macallishiina waa taqaaniin gudoomiyii hore waaye laakiin waa macallin national team Soomaaliya waa macallin gabdhihii inch ayagoo gabdhihii inch la kas jirin inch had ciyaaraha inch markii loo magac inch qiimo laakiin magac saaqiimo u yeelay shiino gaad waa maasan tahay waxaan rabaa laba kelmadood dardaarna anagoo waqtigan isku yareynayno inaan ku soo dhaweeyo odaygii aabihii soo maray oo nagu weyn oo ogtiin boqor jaran ka dhahay ficiisa waa prime minister maanta asaga anagu nagu dhex jiraa ku soo dhaw anagoo dardaarankaagi iyo warkaagi macaana u baahanahay meeshaada fadhiya daarsi inta meesha iskugu timid waa salaamantii galabtana waxaan meesha iskugu nimid tartanka furmayo maalinta ciida ama marka la furo soonka oo hadda loo fadhiyo isku aadkii qorituurkii taasaan iskugu nimi midda kale waxaan leeyahay sportiga waa sportiga waa isku keenaa dadka ma kala daadiyo sportiga wax badan aan ku soo dhex jiray runtii aniga markaan iska hadlo anoon isfaaninaynin wax badan aan ku soo jiray macaankiisana waa soo arkay dhibaatadiisa hadda socotana waa arkay aan ka daqnanayo runta markii loo hadlo waxaan leenahay waxaasna horta laga soo baxo gacmaha la isqabsado meel ha laga soo wada jeesto aniga waxaan ahaa oday sport ninka kaliya ma isfaaninayay taariikhda ay xusayso sanadkii 3 mar baxo 4 mar waan tagaa Talyaaniga waan tagaa Nairobi xiriir baan soo xiraa ciyaar baan keenay Itaaliya 2 sano la ciyaaray Faransa haddana waxa miiska ii fuusho mid Roma ah 5 cisho ilaa 7 cisho taasoo aan soo dhaxdhigaya dadka mas'uulka ka ah sportiga amba kooxaha amba tababarayaasha iyadoo laga wada tashtay in la xulay xulka mar dhow haduu aleeyra waxaan leenahay sportiga waa mid gudaha iyo dibadda waa in la taageeraa waa inaan kuwa dhufeeska ku jiro gudaha aan taageernaa waa inaan amaanaa waa inaan sheegnaa waxay qabteen waa inay ayagana na ogaadaan waxaan u hayno iyo gurbaankaan u tumayno sidaa iyo in ciyaartii wanaag ay ku furnaato waa salaamantiin raalniga ahaada waa ma santahay adeer aad iyo aad buu maasan yahay هذا الهمام كوجرو نينك ماشي ugu odaysana bridge kii dhama siyaasadda sportiga u gudbeynay yaasiin bulsha iloobi
oday aan xuduud lahayn meel kastoo Soomaali wax lagu qabanayo waa taagan yahay Soomaalinimada saas looga baahan yahay aad iyo aad u maasantahay Yaasiin Raalliga ahow niman walaalahayna waxa jiro all the way in Manchester noogu yimid nimankaas u jeedid waa kooxda Manchester oo rabaan inay ciyaaraha ka soo qayb galaan 4 saacadood darteen u soo socdeen maalin kasta ciyaar doona 4 saac ay soo soconayaan marka aad bay u maasiin waxaan la joogo macallin Bob oo markasta macallimiinta kamid ah ilaa Kuwait ilaa Dubai oo maartay macallin daahiri asaga labada macallin kaliya nala shaqeeyaan waay oo markasta dhinac taagan Bob aad baa u maasantahay marna waxaan soo gaaray wariyaha wadani Xasan Chapipa liiban oo soo dhawaada waa maasantiin Shariifka fadhiyo aad baa fadhiyo akhyaar badan nimba Streetham loogu yimid la dhaho meeshas fadhiyo Al-Amuudi waa maasantahay sida aan soo qayb gashay niman dhalinyaro oo kooxdooda Harow loo diiday ayagana waa fadhiyaan ayagoo dacway loo yimideen laakiin insha Allah arintii dib baa fiirinayna Streetham niman walaaleen baa noogu yimid kooxda Streetham dhalinyaro yar oo aad u ida badan sanadkii hore wax bay sameeyeen dhammaan guddiga ay u riyaaqeen ilmo yar waxaan ugu dambeysay waagii Soomaaliya ilmo markay garoonka baxayaan ayagoo safan macallimkoodii raacayo marka aad iyo maasantiin insha Allah ta'ala waxaan rabaa in hadana laba hadal oo aad u macaan oo warka si fiican u dhageysta hadalada lagu hadli doono gudoomiye ku soo dhaw ururka dhalinyarada Soomaaliya Saa Ismaan Roble mar haddii sporti laga hadlayo macnaha waxa weeye waa isku imaad iyo tartan weeye isku imaad iyo tartan macnaheedu waa wax aad u wanaagsan weeye hore ayaa loo sheegay sportigu waa kan dadka isku keena bulshada dhan isku keena dad kala qaybsan kala fikri ah kala mataqaanaa ee jinsi ah adduunkaas oo dhan nooc kasta oo kala yahay haddana sporti marka la yiraahdo waa la isku wada imaanaya maxaa yeelay waa luqad waa hawl shaqo mataqaanaa aan la hadlayn weey dhaqdhaqaaq aan la hadlaynin qof kastana oo ka raali gelinaysa weeyaan marka annaga Soomaali ahaan dadka halka isugu yimid oo deegaankan iyo qurbahan iyo dhulkan maartay ajnabiga jooga haddana awood u helay inay intay is abaabulaan kooxo kala duwan la suubiyo la tartamo muxuu ahaa sanadkii mar la isku yimaado wadamo kale la aado runtii wax aad u weyn weey dadka ka shaqeeyana wax weyn bay qabteen dabcan waa la soconaa in qaar kamid oo dadka lagu soo saaray tartamadan inay ilaa heer qaran ee Soomaaliya u ciyaarayaan ama u ciyaaraan yani waxa weeye runtii wax aad u qiimo badan weey dhalinyarada in markasta ay noqdaan cidda oo hogaaminaysa isku imaadkaas waa wax weyn weeye dabcan waxaan filayaa kuwa ciyaaraya kuwa kale inay daba socdaan caadatan ba sportigu jiilba bedelaya marka teemka hadda jira teemka ka dambeeyo yaraa oo soo socda ayakuna in lagu tala galo ama lagu tala galay waan filayaa marka waxaan rajaynayaa tartankan iyo isku imaadkan iyo muxuu ahaa hawshan aad u fiican oo guddiga sportiga ee jaaliyadatan ay suubiyeen waa u hambalyeynaa waana soo dhaweynaynaa ciyaaraha furmaya waa mahadsantiin haddana waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka Yusuf oo ah naadigii wagad oo shaqo fiican ka soo qabtay muddo dheerna gudoomiye ku xigay ka soo qabtay soo dhaweeyo mikrofoonka wallahi mar haddii sport laga hadlayo hadal iga imaanayo waa jiraac ay qabanaysaa marka waxa weeye sportigu nolosheena ku xiran yahay waxa la sportigu qabiil ma la yiri waa qabiil walaana marka sportiga qabiilkeena anaga qabiilka alleena waa sport asaga noo qabiil anaga qabiil kale ma jiro asaga isku kay hogaamiya asaga meel gaarsiiya wixii la dhigay marka salaad baa hore u yiri rag hore hortay oo hadlay wixii la sheegay wala sheegay hal arrin baan gubaabahan wali deeranaya aan sheegaya waxaan la jiraacyada ilaa ugu qabataa markaan maqlo raadiyaha ka maqlo telefishinka ka maqlo ciyaartoy hebel oo Manchester u ciyaara ama United Manchester u ciyaara ama hebel u ciyaara 50 milyan baa lagu gadanaya 50 milyan oo pound baa lagu iibsanaya markaan maqlo ayra hal Soomaali lagu iibsado 20 milyan ma jira hal Soomaali 10 milyan lagu soo gaari karnaa aan gaarsiino waa gaarsiin karnaa aan gaarsiino ciyaartoydeena Soomaaliya inta soo saarno la iibsado ee kooxaha weyn ka qayb galaan talaaniga waxa ka ciyaar mid la yiraahdo Bonatelli magaca xataa inta bedelo magaca tare la bax Bonatelli la bax Afrikaan buu ahaa magaca xataa waa bedeshay laakiin qiimo badan buu joogaa waxa ka sababay waxa ka soo qiimo badan buu joogaa oo la gadanayaa aan gaarsiino ciyaartoydeena in la iibsado in kooxaha weyn ka qayb galaan soo gaarsiino waa gaarsiin karnaa waa yaal taas aan ka codsanaya waa iga codsi السلام عليكم
يوسف أدبا ما سنتاي وإن شاء الله ولو قلت الجراء وحشيء يسد وأنا صوص عطاء وده كانوا حاجونا لبعض سنة إلى هذا نين هندي لما هاي أو كعيار بريمشيب أنا قال لكم وصلوا دون هيب لكن إن شاء الله وإيماننا وحرب أنا كسر الميكروفون نينك إسكوحرة بريش كايدي شيء جاي بريش واي سياسة ده إسبورتي وإسكوحرة ولقي إسبورتي وهاجر لكن تذكر مية قناة سياسة ده أنا إسكار كان وحيوم ده إنه سياسي ليه لكن وادينك الله مرة مركي مقالة قف إيمانا نينك لصوع كو أسقوا أنا كو نينك وعنا سوا واكن عبدي واكن كو ياسين بيوعان ورأنت أنا من الناس من محنا قلت لني تلا هذا ما كمارنا ياسين وكسودو بركة سوا بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله الكريم أهل بدن أو سبورتي ماشي وافرديا رك بدن وأنا جمع قيهين كل واحد رجينا دد واحد باللابان دمر والمعود فائدة كتير هذا مرك إن أنا معتي هل إن أو قبيلة كوجا أو أما الصومال هاد كل قيب سنته يعني سبورتي حاجة مرك أركع وحرجينا كهاد إنه سي بي دون تدو إلى هذا سمر إنه تاب تعيره مرك أركع حياة واحد على شيء حنون تعير ورنتيس محيلي حدين من وحير وحقبتان oo wanaag sameeyaan dad ba waxay leeyihiin waa NGO maya anaga naga soo horjeedano danahayn ma dana kale burinayaan marka talada uu soo darsanaya taas ogaada nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu naga dardaar maxaasinimada ummadda ninka ugu xun oo ahlu naarka ah waa ninka xasidka ah war walaalka wuxuu helo alxamdulillah adiga hadaa weysa ilaahu u zaa'idi ana isiid hadibsan markaas qalbigu waa furma qalbigu waa noo furma walaalnimadu waa furmaysaa isku dhawaashadu waa furmaysaa maxaa taas keenayo absolute waxa keenayo in shakhs u fiirsado waa doqonnimo waxaan rajaynayaa nin walba oo madhab hayo nin walba cayaarahan ama dhalinyarada dhexdeeda wax ka hayo ama ha ahaado midaynta isboortiga ama ha ahaado jaaliyadda isboortiga ama ha ahaado muxuu ahaa Somali Week ama ha ahaado Somali Youth Development ha ahaado وكلام مارمان وهذا يا كمان مارنتان إنكوا كلام مارمين هالجيدانين ورميلك كلامك وحقبتك وهي الأسكوس بوحشة كان كلام مالش بوحة هذيك عادو سن مركز قول بانجارين عروت يرير أخبار إننا وحنكو أبورينا إن ماشى دولارك الشيء يوسف إنه جيرسينو وأيمال نوتجان وأيق عشحادنا حتى هل نبان قبنا أو ليري مانشستر سيتي عداي ويلكيسا يا مرمر للشيغا فاذا قمنا عداي واكف فايده السلام مركو يماده 500 طور انتو كليات وكان دخيال ترى انا الشيغا ما انا عداي انا كلو بيشنا waa 5 طور كرو لكن هل هي راعيلك ماشي او نتغوا marka ilmihi hal adkaysiyo ma tala walaalnimo waay hal adkaysiyo cadayna yaa la karin talada hal looga qaato walaal hal la waco mar walba ha tixgelsho من ليستر هالنقطة ماجستر هالنقطة دليل كوح واحد جرت أو أبابشوا قالوا لي أنا ماشي أبابلو يسلم فهمتوا ترى قدرة كلين قال إن الجارينا وعدنا ورسالة ربنا محنا غلق بكرتين لها دقالة كيري كرتين ولا نمي إيميل بوحنا كيري كرتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa inaan u waco qof la magacaabo ninka ugu dambeeyay oo mas'uul ah xildhibaan hore ah wasiir hore ah haddana maanta waa afhayeenka Olombikada Soomaaliyeed goos Cabdi Dheeg السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحنا شرفت له معلمين تا قرنكا بهوينت سبورتيجا قدوميها سومالي ويك يقدوه انت نجمع قن سبورتيجا انت جوكته وسلام يا رمضان مبارك لي هاي أيضا أن كجرنا إن شاء الله لقلي دونه طبعا كي قدام بيجي إلهي خير كذا عنا سيو nafsadayda iyo nafsadiinana waxaan uga dardaarmayaa ilaahay ka cabsi hortako midda xigta odayaasha warkii dhameeyay aniga laba kelmadood aan rabaa inaan raacsiisto oo ahaa Yusuf wagad aan si daba qaadaya arintaas aan ku gubaabinaya in aan xooga iyo ofartiga aan isu qabno dhaxdeen inaan gelino in aan soo saarno ciyaartooy oo ka qayb gala tartamada caalamka maadaama
maadaama business ay tahay qof kasta aan loo sheegaynin magac uu yahay dhaqaale ku jiro ummadii iyo bulshadiina ay ku badbaadayso caruurteena ku badbaadayaan qaranka Soomaaliyeed iyo Soomaaliya haddii aan u noqono waxaan soo jeedin lahaa waa iga fartiin anoo ka faa'iideysanaya fursadan qorituurka Somali Week in wasaaradda iyo Olombikada iyo xiriirka kubadda cagta in ay isku xirmaan si isboortigii Soomaaliyeed horumar loo gaarsiiyo annaga dibaddana aan u taageerno mar koowaad iyo mar labaad khudbad uma aan soo istaagin waa mahadsantihiin hawshan idinka hal saaca naga leedihiin annagana nus saacan ku leenahay waa idin daba taagannahay odayaalaan nahay waa idin la shaqaynaynaa keligiin ma lihdin saa noo sharafteen waa mahadsantihiin soo fariisa باي كان هرت دوما اسكن سوفر هذيك السوفر السليم كان سوفر سيدا بقى سوفر السليم aad iyo aad ayuu mahadsan yahay afhayeenka Olombikada anoo hadda meesha ka sii soconay waxaan soo gaaray gudoomiyaha jaalida sportiga gudoomiyaha North London Dhuma sacab fiican iyo asxaabta la socoto qaar ay kamid yihiin gudiga Somali Week عبدي اسكف لي سادي Somali Week واشينو waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyihii hore si ahaan jir 20 sano kor xulka qaranka Soomaaliyeed gabdhaha guusha ugu dambeeyay ninka noo keenay waay mar dhowna guul kala helnay oo gabdhaha ah waa guul kubadda kolayga wiilashii Tanzania ilaa hadda kubadda cagta waxna laga ma hayo sababta yaa sheegi karo gudoomiyaha technical ee Europe aan joogo waa Islow waa nin member ka ah Somali Week laakiin wakiil wuxuu yahay ciyaartooyda kubadda cagta Sadeeq waa qaybta Europe ee Olombikada Soomaaliyeed Abdisalaam waa kubadda handball gacanta xogayaha waxa way ninkaas waa xubin ka tirsan marka Somali Week sida moodaan ma aha wadankiina way la shaqeeyaan dibaddana way ka shaqeeyaan marka waxaan ka codsanaynaa inaan fariinta uu naga gaarsiiyo sida kubadda kolayga loo siiyay wiilal iyo gabdho oo full ah kubadda cagta loo siiyay hal koox oo dhan meesha 2 iyo 3 laga qaadayo waxa ka fiican in kooxna la siiyo oo nala tijaabiyo waxaan ballan qaadaynaa guusha ay gaareen in mid lamid ah ama inaan dhaafno markaas kadib ayaa ciyaartooydeena la arkaya laakiin intay xiriirada iyo Olombikada ay hoos nugu hayaan ilmaheen lama arkayo laakiin maanta ay ku tala galaan inay kor noo qaadaan ilmaha Soomaalida waa la arkaya hay okay insha Allah taala gudoomiyihii hore ee Somali Week inuu ku soo dhawaadaan jeclahay mikrofoonka asagoo la dardaarmayo gudoomiyaha cusub akhyaarta assalaamu alaykum warahmatullahi taala wabarakaat sanadkii hore waxaan ahaa gudoomiyaha Serie A ee Somali Week kaliya ahayn markii ugu horeyso runtii laba qodob kaliya wixii wada dardaaran iyo ka hadalida odayaasha dhameeyay laba qodob kaliya ka hadlaya gudoomiyanimadeedii sanadkii hore waxa suurta galiyay dadkii soo doortay ka soko waxa suurta galiyay Daus oo tanazul sameeyay kadibna walaalahay Somali Weekna kulligood waa ku raaceen dadkii ku taakuleeyay ahaayeen runtii shaqadan hadda la qabanayo waa shaqo adag waxaan kula dardaarmayaa gudoomiyaha cusub ninka rag wuxuu yahay markuu rag garbiis taagan yihiin oo rag yahay hadduu rag haysanin rag ma noqon karo runtii Somali Week Serie A ma dhahay dadkii ila shaqeeyay aniga Somali Week ahaayeen ha ugu horeeyo gudoomiyaha maanta sanadkan ah ha ku xiga Islow Hussein Maxambuube kulligood macnaha si fiican ay ila wada shaqeeyeen runtii waana ku mahadsan yihiin runtii dhalinyaro yar oo waxa jirto oo sida hadda gudoomiye Dhuma uu soo galay North London si fiican ay caawinay Shiino Yaasiin Abtigay kulli macnaha waa dadkii itaakuleeyay runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in sanadkan uu Cabdi Axmed gudoomiye yahay garbihiisana la wada taagan yahay runtiina rafaadkii aniga aan maray ma mari doono u maleynaya waxaan rajaynayaa inuu rafaadkaas marin runtii aniga darsinay ii ahayd sanadkii hore markaan gudoomiyaha ahaa taakuleen badan oo aad iyo aad u badan gudoomiyaha jaalid waa siiyay
daahir cali kulmiye waxaan aad ugu faraxsanahay cabdidheego runtii asiga ka qayb qaatay barnaamijkaas gudoominimada aan noqonahay si fiican ugu qayb qaatay laba nin aan ammaan u soo jeedina labada macallin bob iyo daahir runtii waa dad ciyaartooy soo saaro siiba macallin daahir oo runtii ciyaartooy fara badan soo saaray waddanka ninkii ugu horreeyey oo ama dhehe ninkii ugu kooban badna inuu ahaa haddana bob oo haddana ciyaartooy quality leh keenay macallinka annaga macallimiin aan ahayn waa naqaanaa macallinka systemka u shaqeeyo labadaas macallin waxaan ku ammaanayaa systemka ay ciyaartooyda u soo saaraan ama positionka ciyaartooygiisa inay yaqaanaan macallin waxaa arkaysaa ciyaartooygiisa aan aqoonin inuu bidax ka dheela inuu midig ka dheela aan aqoonin laakiin labadaas macallin waxaan ku ammaanayaa inay yihiin macallimiin professionalis ah yaqaana sida ciyaartooyda loo tababaro hal ninaa jiro cabdulaahi hilltop oo runtii ku soo xigo runtii waa nin dhalinyara soo dadaalay asigana kooxa sanado badan sameynayay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad cabdi axmed inuu gudoomiye ahaado sanadkaane waa garab taagannahay hiil iyo hooba waan la shaqaynaynaa insha allah haddii ilaah yiraahdo wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waqtiga ayaa nahayo waxaan rabaa inaan gudoomiyaha ku wareejiyo wixii talo iyo dardaarane iyo sanadkan ciyaaraha soo dhacayo inuu asna faal nooga bixiyo sanadkan kolley waxa u malaynaa xilqaad eed qaada la yiri Soomaali ku maamaada kolley waxa u malaynaa maanta waxa noo furmaaya qorturki ciyaarahan waxa noo bilaabmaa bisha 10keeda hadduu ilaa ka noqdo baad ciid marka kolley way idinkan oo ku maasatay waqtigiina saa noogu soo dhumiseen waxaan dhihi lahaa ramadaan kariim السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحرمنا إنا برنامج كيني هورتورك ها. مركا وحنا الجو عبد السلام أو ما أرتي حقيه أوركا سيدي عيارها وقبصوم لها يو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما يستاهل ما أنت إنا قد بدر هالكن كجيدي ما دام وظف اليان ما لحد ذلك الصومالي كسو وذا شقين. runtii inaan aniga wax idin sheego subxaan allah waa wax laga xishoodo laakiin amarka iska noqdo gudoomiyayga wuxuu ii magacaabay inaan xokeeyo noqdo wasishka waa laga lahay islaawa isagana tanasul sameeyay marka ma sha allah runtii aniga horta waxaan rabaa inaan la hadlo ciyaartooyda iyo macallimiintooda sharcigaas aan gudoomiyaha uu soo printer gareeyay wixii meeshan ku yaala waxaan jeclaa lahay in macallimiinta aysan ku ekaanin ay ardaydooda ama playerskooda ay u sheegaan ama ay u text gareeyaan ama ay tusaan ama ay u email gareeyaan ama ay u scan gareeyaan markay sharciyo adaga meeshan ku yaalo mar waliba waxay dhibaato ka dhacdaa in wax yar markay dhacaan refereeyada lagu ordo refereeyada la iska canaanta la iska push gareeyo la iska feero last year wixii dhacay oo kale inaysan dhicin each player wixii laga rabo sharcigooda halkan uu ku yaala copy of passport iyo driving license in laga rabo all the rules kii oo dhan halkan idinku sheegnay please waxa idinku codsanaynaa inta uu waxa dhici karta sometimes in qalad inuu dhaco way badan tahay ها اوكي each waxa idin la ogol yahay to alla idmo 20 player squad-ka idin la ogol yahay 3 waxa idin la ogol yahay oo non Somalian inaad ku adkareysan kartaan beach-ka waxa gali kara only 3 ayaa idin gali karto each player must to have marking of photocopy your driving license one of passport of driving license once you play marking for the team you cannot play other team kale each 45 minutes ala wada dheelaa insha Allah 90 minutes ka team kamtaga waa inuu aabankiisa haystaa before the game kick off ka 30 minutes waa inaa soo arrive gareysaan insha Allah teamkii 15 minutes garoonka ka soo tahay soo gali waayo 3 points kiisa ada teamka kala automatically qaadanayo red card ka next game uu miss gareynaa arguing with the referee ka hadda idin sheego waaye in qalad haduu dhaco refereeyada adduunka dhan wax qaldaano in aad noo timaadaan qaladka warqad aad soo qortaan
50 baan aa kusoo adgaraysaan with 4 hours annagana waxaa idiin ballan qaadaynaa inaan idiin soo gudbino wixii meeshaas ka soo baxo referee la riixi kara ma jiro referee la dili kara ma jiro because many people many times waxay dhahdeen refereeyada waxa idinka iska soo xushay idinka keena annaga ma keeno refereeyada halkaan ay ka yimaadaan refereegu wuxuu imaanaa garoonka asigoo email wato magaciisa wato aniga duutigeyna waxaa waa xokeeyaha haddii aan nahay ama gudoomiyaha wuu imaanaa magaciisa uu sheegaa wuxuu leeyahay aniga magacayga waa kana waa ka qaadaynaa markaan ka qaadno okay identificationkaada can we see okay passportkiisa ama wuxuu wato photocopy ku tusaa kadibna waxaan ogaanaynaa inuu yahay refereegii saxda ahaa iyo assistantkiisa inuu yahay dan waxaan annaga qaadaynaa qolalka inaan u diyaarino meelahaas aan geyno dan ciyaarta ay qabtaan qalad wuu dhacaa hadduu qalad dhaco fadlan sabarka in la badiyo FA-ga Middlesex xiriirka football federationka waddankaana soo diraan email aan u dirnaa iyagaa noo soo jawaabo any report ciyaarahaas uu gudoomiyaha noo sheegay 10 bishay noo bilaabanayaan 18 bishay noogu eg yihiin السلام عليكم انت سوق كوينا اوكي waxaan rabnaa inaan barnaamijka bilaabno barnaamijka inaan bilaabno qoratuurka marka sidii wax loo sameyn lahaa guddiga farsamada ayaa ka mas'uula islaaw adigoo ku soo dhawaanaya iyo sidii qorshaha uu yahay wixii war muxuu ahaa ama qodba la jeedi lahaa ama waana la jeeday hore loo jeediyey haddana qaybtii kale aan u xil saarnayd oo farsamada ahayd aan geli lahaa hadduu ilaa yidhaahdo tiimamka sanadkan tartanka ka qayb galaya waa 8 tiim 8 tiim qaara isku xaafada qaara banaanka outside ka imaanaya marka guddiga markaan aan tashanay iyo sanadihii hore sidaan ciyaaray ku dhaqi jirnay waxaan isla garanay kooxihii isku xaafada inaan kala qaadno laba group inaan kala geyno kooxihii kale oo dibadda nooga imaanaya sida Leicester iyo Manchester oo kale inaan ayagana group A iyo group B aan kala geyno marka tiimamka sidaan aan isku qaadnay waxay kala yihiin Hilltop iyo London Stars oo xaafadan ka wada dhisan inay isku group ayna noqon haddii oo nasiibka wada kulansiyo second ana phase ama second stage ama semi finalka inay markaas ay wada dheelaan laakiinse wareegga hore inay kala noqdaan A iyo B kooxaha kale sida Juba iyo nabadoo kale inaan laba group kala geyno Leicester iyo Manchester Merseyside ina ayagana laba group aan kala dhignay B team hadda nagu soo biray Blue Ocean oo waa un teamkii kale oo la dhigi jiray muxuu ahaa West 12 magac kale oo sponsor ayagana inay iyo Streatham United ina ayagana A B saas aan u kala dhigno marka si ay hawsha noogu fududaato marka hore waxaan sameynaynaa maadaama ay kala yihiin A iyo B groupyadii inaan kala qaadano groupkii qofkii 1 ka qaado automatically uu noqdo group يعني group 1 ina group A inuu marka asaga uu galo 2 gana uu noqdo group B marka waxaan rabnaa laba waa okay ma ha waxaan rabaa meeshaas haddii qofka uu joos leeyahay inaan dood yar ka sameeyo Leicester oo kale iyo Manchester waxaa sheegta outside wa laakiin wixii local ah inaan kooxo la kala qaadin oo nin walba nasiibkiisa iyo wuxuu asiga markaas mutaysto in free looga dhigaan aniga fikrad ahaan soo jeedi lahaa sababaha loo kala qaadanayo wax gooni loo kala qaadanayo ma hore u socotay dood noocaas noogama imaan jira maadaama ay wixii ay local ay yihiin second phase anaan isla geyno hadda European taxta waa samaysaa wadankan oo kale afar waxa dheelo Champions League direct wadankan first stage waa kooxii waa la kala qaadaa marba stage la kala geynaa si wixii dadka kuwaan isku wadanka ahayn isla dheelin maana wax kala gooni ama favor kana gooni ama koox kale favor loo sameeyay ma jiro wixii isku xaafada inaan marka hore aan u aragna ama stage saas inaan u kala qaadno laakiin anaga naguma jirto inaan koox gooni aan wax gooni aan u sameynayna ma wax adan inta aqoon inta noo korortay kaliya oo
hadda European sida loo sameeyo kale wixii wadan isku wadana waa la kala qaadaa wax shay iska normal ah waay marka annaga taas asi gudi ahaan taasaan u garanay wax culays koox gooni aan culays ku saarayn ama kooxdana fiican u danay ama kooxdaas fiican u danay naga tahayna baahan koox kasta waa isku wada dhacaysa oo koox u tagay hadaa waji koowaad is arkin second stage kana waa la is arkaya maana wax koox kale koox loogu danaynayna ma marka waxaan jeclaan lahaa sidaan annaga aan u fiirinay kooxaha waa noo wada sameeyeen oo annaga meeshay qaybtan tartankan qabanay ay wax ka bilayaan ama wax ka dhisayaan marka inaan kala xigsanana ab iyo fildareen noo tahay taasna nagama suurta gasho asi gudina waa xisaabnay waa isla fiirinay tanana noo qurux taasana isla garanay marka walaalahay waxaan jeclaan lahaa inaad idinkana nagu garab siisaan hadduu ilaa yiraahdo waa maasantiin marka waxaan jeclaan lahaa hooshayni hore inaan galno waa soconaynaa marka waxaan rabaa adaatiya adeer Somare iyo adeer Yusuf inay noo soo hormaraan waxaan jeclaan lahayn numbers aad ku jiro afartaas ba numbers 1 and 2 ku jiro 1kii waa labadan kooxood hadda sidaan u sheegay waa Hilltop iyo London Stars ugu horeeyo kooxdii la qaado ama waxa ahay 1 hadii loo qaado oo muxuu ahay 1 iyo 2 ayay kala galayaan marka asay inta waxa noo yaalo Hilltop iyo London Stars marka waxaan jeclaan lahaa xogaa yar ku jiro meesha ana nahdata ana ka fikirin nafsadayda waxaan jeclaan lahaa abuga warqadiisa hoos baxda b ورو أنك جعلان لهن ونفتى يلو أصيق بصدر رن كوحية كجوهرت كوحية كفي عن تنها with face second face كان يلينا and London Stars يوم حوها يهلتوب يا جو ما جو كانوا هاي ماذا إذا كالقاتا وري تو قفك وكلا صباح one متى one one group one وحوا هيلتوب جروب ايه هيلتوب معلي فرادنا سي تو سنه ان دد كتصبا at least ina la ogaa karo mugta hadii kale hore alaabta jooro hadii kale hore la gelina two no جروب 2 لندن waxaan noogu xiga Jubba iyo Nabad Stars labadooda macallin السلام عليكم نمبر 1 1 Jubba Nabad Stars Nabad Stars جروب ايه معردار اوكي كان عمرك نمبرك سي ان ليستر iyo مانشستر number 2 okay Leicester number 2 Manchester number 1 هي Leicester ستريت هامي waxaa noo haray Blue Ocean ya معلم بعد one soma one straight ham number 1 one kawa Hilltop straight ham straight ham United FC number 2 waxa waaye Blue Ocean waa isku jira okay waa alam sidaan waa automatically oo kala galayaan and group A group 1 waxa galay Hilltop Jubba
Moorside oo Manchester ah iyo Streatham United ayaa group muxuu ahaa group 1 galeen group 2 na waxa uu noqday London Stars Nabadda Leicester iyo Blue Ocean marka wareeg intaanan aanan qoratuur kale aan sii galin ama aan wax kale aan sii galin waxaan jeclaan lahayn inaan horta muxuu ahaa inaan iska aragno kooxihii intii ka joogto markaan si waxa jirto kooxda anaga waxaan ku bilaawi jirnay mar alla kooxda markaa championa kooxdii championa last year-na waxay noqotay London Star sida ka warqabtaan waa group muxuu ahaa group 2 ay ku jirtaa waxaan jeclaan lahayn sano kasta si caadano ah inaan ku bilaawno London Stars maadaama ay sanaha hore ay champion noo ahayd then group 2 inaan ciyaari noogu hormaraan an group 1 kay aan maalinta labaad aan ka dhigano maadaama ay London ay tahay London Star ay tahay championi waxa isku soo baxday labadii kooxood last year ay final ka hayeen maantana waxay nasiib u yeesheen ay iiga furaan waa Nabadda iyo London Star Manchester oo Moorside ku jirto iyo Streatham Soma afartaas meesha ayaa qori kan okay group 1 waxa waaye London Star Nabadda Leicester iyo Blue Ocean afartaas kooxoodba maalinta furitaanka way wada ciyaarayaan saas ha loola socdo maalinta labaad waa Hilltop Juba Moorside iyo Streatham United ayagana maalinta ku xigto oo axadda ah afarta way wada ciyaarayaan sidaas ayaa hadda marka insha Allah geemka kale dib aan soo wada arkeenaa waxaan rabnaa inaan barnaamij soo gabagabeeyno Wembley Park Wembley Park barnaamijka noo socda hadhow su'aal wixii qabtiin xoogaya weydiiya please waa idin baryana wixii aan rabnaa soo gabagabeeyno waxaan rabnaa inaa oo maarkii saaxiibkeena aan jecelnahay oo noogu yimid all the way North London gudoomiye dhuumaaye wakiilka oo ah Somali Week laantaas qaybtaas inoo wakiila waxaan rabnaa inuu dardaaran iyo noo soo jeediyo annagoo aad u jecel soo dhaweyntiisa dhalinyarada xafladan horta oo qoratuurka oo lagu dhigay macnaha West London anaga kule Northka nahay waxaan aaminsanahay inaan dad walaalna hal qof nahay diinta waxay qabtaa qofka inay walaal noqdaan hal qof noqdaan soo marka ani maanta waxaan u imid wanaagan iyo sharaftan iyo saaxiibkay Cabdi Axmed oo laga dhigay gudoomiyaha Somali Week sanadkan marka waxaan dareemaa kulli ani xataa naftirkayna gudoomiye ka meesha waxaan kaloo soo dhaweynaa saaxiibkay gudoomiyaha jaaliyada UK Daracal Kulmiye oo asigan wanaag badan ka muujiyay sidii macna aragtideeda ay la tahay qof walba aragtiyo leeyahay magta inuu wanaag badan ciyaariye badan ka soo qabtay asigan ma madcelinayna waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa saaxiibkay Cabdi Dheeg oo muddo wadanka ka maqnaay oo hadda ku soo laabtay oo jeclaa soo intaan ka sii fiican ama wasiir ah ama wax badan la jeclaa laakiin insha Allah khayrka waa macallishiina oo sanadka hore aan la shaqeynay oo asigan wanaageen inta ka sheegay kulli wixii wanaag wado ama sharaf wado waa la shaqeynayna wixii xumaan iyo dhibaato anagana waxa kulli diyaar muunihin marka waxaan leeyahay sanadkan aan la dardaarmay sida ra'yigayga ama fikradda ay tahay waxaan jeclaan lahaa sida sanadka hore ka qurux badnaato wax walba sanadka ka fiicnaadaan ramadaankiisa naga maqan naga dhinta maanta aan wada duugna aan wada ogtiina marka ninka gaari doon ramadaanka dambe irta Ilaahay gaarsiyo inuu xumaan ku sii fikiro ma aha soo marka waxa aan dardaaran iga ah si walaaltinimo inta aan qurux badan iyo wax ka weyn baa heli karnaa marka aan rajeynaa kulli nabad inay ku dhamaato sidii rafriyaasha la sheegay waqtigii in la istixgeliyo ninba walaalkiisa oo tixgeliyo waxaan wax weyn oo macnaha ciyaalkan ku haynaa aan ku wanaajinayna annaga isma qancinayna marka hadii naqata nin weyn in la qanciyo dhibaato waay marka hal isku dayo nin walba inuu cunuga oo wado inuu qanciyo baanta oo qurxiyo marka kulli nin walba meeshan wax u yimi wanaaga oo nimid hanaga muuqdo وانا mahadsantiin السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير دوماي aad iyo aad buu mahadsan yahay sida hore idinku sheegay waxba qofka gadaal ka yimid gudoomiye jaaliyada sport oo rabay marka hore inuu yimaado asaga ugu dambeeyay dadka marka khudbadan oo ugu dambeeyna ninkii oo gadaal ka yimaado gadaal uu ka maraa khudbada jaal gudoomiye ku soo dhaw
بسم الله ورحمة الله وبركاته مركز وين سلامي وبال رمضان dadkooda soomanaha maleynaya kulligeen waa bil qeyr badan horta maash marka hore salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi halkan waxaan hadda soo istaagay in cayaaraha Soomaali week maadaama aan ku hadlay gudoomiyaha jaalid sportiga in aan sanadkii hore wax ka duwan soo bandhigno aan soo garab istaagno cayaaraha Soomaali week waxaan rabaa halkan inaan mahad gaar ugu celiyo macallimiinta sideedda macallin halkan cayaaraha noo keeni doonta carruurta da'dooda yar waxaan leenahay horta aad baa u mahadsantihiin shaqo adag baad qabataan waan dareemi karnaa xilligan qaboobaha kuleelaha roobka inuu ku doo kuleelka aad u badan yahay horta macallimiinta waxaan leenahay aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa sida sharafta leh anoo soo garab istaagtiin la'aantiin wax ma kala socon lahayn macallin walba waxaan si gaar ayaan u salaamayaa mar raba halka inaan ku dheeraado waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahad celiyo Masar Cabdiqaadir Daa'uus oo suura geliya cayaaraha mar walba inay socdaan sanadkii horena aan noo tanaasulay jecelna wanaaga mar walba waxaan leeyahay kulligiin waan garab taaganahay waxaan si gaar ah halkan ugu mahad celinayaa saaxiibkii Cabdi Dheeg oo aan leeyahay asagana jagada lagu dhiibay Olombikada aad baan ugu faraxsanahay annaga mar walba ku garab taaganahay waxaan u baahanahay mar walba soo garab istaagsiinaysan si sportiga loo horumariyo mar walba halkii aan ku dheeraado waxaan halkan aan rabaa inaan macallin shiine cayaarihii ka fadhiyay last year in aad iyo aad inaan uga mahad celiyo macallinka waxaan leenahay shaqo adag baa noo qabatay magacaaga baan isticmaalnay anaga dhalinyar baan nahay magacaan hore u soo samaysadna waxaan ku leenahay sharaf baa mudantaa sportiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maasantahay gudoomiye waxaan umaleynaya Cabdi Dheeg nin kasto Cabdi Dheeg haddii gudoomiyaha Olombikada uu noqon lahaa maxaa u maleynaydeen afayena dhaqaajilana marka aad bay umaasiin dhammaan dadka ka soo qayb galay waa maasantihiin kooxaha marti sharafta macallimiinta dhalinyarada odayaasha intaan waxaan ku soo gabagabeynaa qortuurkii maanta ayaan ku talagalnay ciyaarihii Somali Week ee sanadkan 2013 ilaa 2014 insha Allah oo gudoomiye ka yahay sida u jeedaan gudoomiyaha Cabdi Axmed iyo akhyaartii la shaqeyn lahayd dhamaan waa annagoo dhan Somali Week laakiin waxa ogaatiin Somali Week kaligeena ma aha dhammaantiin Somali Week baatiin la'aantiin dad waxa jira guddiga ku jira haddana banaanka ka joogo oo laakiin shaqada ay qabtaan aanan qaban annaka sida Liibaan AJ oo kale shaqa aad u badan Cabdi Kariin oo kale ma iloobi karno العمود ميلو كورنا شريفكم ميلو كورنا ما سنتين وحنا ذي شيء جاية برنامج هالكان يالو ولا الأفوري سيدا أكتين فكرة أكتر من دلنيا رواي هل باون أدماش أسكور الدو وحي أفورني هالقوس مركب حياتك عسنا نكستو أو ذمانتا هالكبان إنه كوردو سي ما أركتي أو لما كاس ولا عليه الصومالي كونول أو دباتيسن ضدك أغونتا إنانكو أفورينو وحنا أد ما هتجارو سوجدنا يا معلم جون oo markasta garab taagan hil iyo howl garoomaha hadii la dhaho hadii tardaaran la dhaho hadii la dhaho waano markasta waaniyo ya na wanaajiyo na taageero macallin John waa maasan tahay ka soo qayb galkaagi taageeridaadii markasta ma ku iloobi karno odaya noo tahay waa ku raacsanahay adna waan raacsan tahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh صعب 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 بدن هالوقت